noloshiisu waxay u egtahay midda filmaanta. waxa uu iibiyey kumanaan tan oo isugu jirta noocyada daroogada. waxa uuna ururiyey buuro hanti ah boqorka kokaayinta ama hogaamiyaha dambiilayaasha. intaasi oo sifo waxaa kulansaday hal shakhsi, waana Pablo Emilio Escobar. muuqaalkan waxa aan kugu soo gudbinayaa taariikhdii ka hartay Robin Hoodkii magaalada Medellin. magacaygu waa Cabdiraxmaan Siciid Darsame, halkanina waa kanaalka Ilayska dunida. haddaba ku soo dhowaada muuqaalkeena oo dhammaystiran. Pablo Emilio Escobar waxa uu dhashay bishii December sanadkii 1949. waxa uuna ka dhashay qoys Colombian sabool ah. waxa uu aabihii ahaa beeraley, hooyadiisna waxay ahayd macallimad dugsi hoose ah. waxa ay qoyskiisu ku noolaayeen faqri daran. waxa uuna la noolaa 6 kale oo walaalihiis ah. isaga oo jira 5 sano oo kaliya waxa uu hooyadii ka ballan qaaday inuu noqon doono mid ka mid ah ragga ugu qanisan caalamka. dhab ahaantiina waa uu ku guulaystay arrinkaasi. waxa uuna noqday taajir aan sumcad lahayn. caalamka dambiyada Escobar waxa uu galay isagoo yar. waxa uuna isagoo dhalinyaro ah ka soo xadi jiray agabka qabuuraha, kadibna waa uu sii iibgeyn jiray. marba marka ka sii dambaysa arrinkiis waxa uu ahaa mid sii xoogaysta, ilaa uu markii dambe ku kacay arrimo tuuganimo iyo xeeladaysi ah. isaga oo xadi jiray baabuurta iyo weliba goobaha ganacsiyada. meelaha uu lacagta ugu badan ka heli jiray waxaa ka mid ah afduubyada. waxaana dadka afduuban jiray isaga iyo koox saaxiibadii ah. waxa ayna markii dambe afduubteen mid ka mid ah mas'uuliyiintii magaalada Medellin. waxa ayna madax furasho uga qaateen lacago fara badan, kuwaas oo gaarayay $100,000. markii ay joogteeyeen afduubashada, waxa ay marka qaar dili jireen isaga iyo saaxiibadiisa. qofka ay soo afduubteen waa marka ay ka qaataan lacagta ay ka rabeen, waana sida ay ku sameeyeen ninkii ganacsada ahaa ee Diego Misas, kaas uu afduubtay kadibna uu dilay xagaagii 1971 isagoo markaas ka qaatay $50,000. bilowgii 70-yadii qarnigii hore ayuu galay ganacsiga kokaayinta kadib markii ay isbarteen wiil Mareykan oo diyaarad gaar ah leh. intaas kadib isla Pablo ayaa bilaabay inuu aado Panama kana sii aado Mareykanka, wadadaas oo uu ku gudbiyo daroogada kokaayinta. waxa uuna bilaabay Pablo inuu ku gudbiyo kokaayinta shaagaga diyaaradaha. waxa uuna siin jiray beelotyada diyaaradaha laaluush si aysan uga hor istaagin shaqadiisa. markii dambena isaga ayaa noqday mulkiile diyaaradeed. bishii May sanadkii 1976 ayaa gacanta lagu dhigay Escobar, isaga oo markaas la socday qayb ka mid ah raggiisii. waxa ayna markaas ka soo laabteen Ecuador iyaga oo 18 kiilo ee cajiinka kokaayinta ah. waxa uu bilowgii isku dayay Escobar inuu laaluusho garsoorkii, balse kuma uusan guulaysan. kadib waxa uu amar ku bixiyay in la dilo labadii sargaal ee gacanta ku soo dhigay isaga, taas oo ku khasabtay garsoorkii in eedimihii uu ka daayo. waxaana go'aan lagu qaatay in la qaato dahab intii la qaadan lahaa rasaas, taas oo ka dhigan in dawladda ay qaadatay lacagtii intii ay la kulmi lahayd baas rasaas ah. arrintaasna waxa ay suurto gelisay in uu Pablo iibsado mas'uuliyiin fara badan. waxa ayna wadadaasi shahashay in uu aasaaso urur ay ka midaysan yihiin ka ganacsadayaasha daroogada. ururkaasna waxa uu u bixiyey Cartel Medellin. kadib markii la aasaasay ururkii Cartel Medellin, waxa uu sii waday ka ganacsiga daroogada kokaayinta. waxa ayna faa'iidadeeda gaadhay $60 milyan maalintiiba. waxa ayna noqotay in loo tahriibiyo dalka Mareykanka. ilaha qaarna waxa ayna leeyihiin 80% kokaayinta Mareykanka timaada waxaa keeni jiray Escobar. markaan Pablo oo maalkiisa uu farabatay, waxa uu ku fikiray inuu galo siyaasadda. talaabooyinkii ugu horreeyay ee uu qaaday waxaa ka mid ahaa inuu isku dayay taageero ka helidda shacabkii deganaa Medellin, isaga oo u dhisay kaniisado, cisbitaallo, iskuulle, xitaa garoomada kubadda cagta. waxa uuna kaloo lacago fara badan u qaybiyey shacabkii deganaa magaaladaas. waxa ayna ku magacaabeen Robin Hoodkii Medellin. sanadii 1982 waxa uu ku biiray xisbi lagu magacaabi jiray Liberaalka. waxa uuna ku guulaystay in uu kursi ka helo baarlamaanka Colombia, balse wax sanad ka yar ayuu kaga degay jagadaas kadib markii uu awaamir ku soo rogay wasiirkii cadaaladda, maadaama uu ninkaani galay faldambiyeedyo waaweyn. intaas kadib waxa uu sii watay ganacsigiisii, balse waxa uu loolan furan kula jiray dawladda Colombia.
23 bishii November sanadii 1989 waxa ay ciidanka Colombia weerareen beertii Pablo xilligaas uu isagana ku sugnaa waxa uu ugu dambeyn ku guuleystay inuu ka farabaxsado ciidankii soo weeraray maalmo kadib kooxdii Pablo waxa ay qaraxiyeen diyaaradii Bong iyagoo u dan lahaa musharaxii madaxtinimada u tartamayay dalka Colombia ee Cesar Gaviria balse isagu waa uu ka badbaaday waxa uu qaraxa diyaaraddaasi galaaftay nafta in ka badan 100 qof oo rayid ah dhanka kale Cesar Gaviria waxa uu ku guuleystay madaxtinimada dalka Colombia waxa uu sii adkeeyay dagaalkii kala dhaxeeyay dadyowga ka ganacsada maandooriyaasha markaan Pablo waxa uu isku bedelay baxsad 20kii bishii Juun sanadii 1991 Pablo waxa uu si iskiisa u galay xabsi uu isla soo dhisay waxa uu ka dalbaday dawladda Colombia in aysan u dhiibin Mareykanka laakiin Pablo hawshiisa waxa uu ka dhaxwatay isla gudaha xabsiga waxaana hawshiisa fahmay ciidamadii waxa ayna ku hareereen xabsigii uu ku jiray 2 bishii December sanadii 1991 ayay ciidamadu xaqiijiyeen goobta rasmiga ee uu ku sugan yahay Pablo kadib baacsiga baxsad waxa ay dawladda Colombia ku guuleysatay inay baxsad ku disho scobar waxaana haleelay 3 xabadood intaas kadib waxa la xaqiijiyay in la dilay imbiradorkii weynaa ee scobar dadka hantiilayaasha ah markay ay u dabaaldegayeen dilkiisa fuqarada magaalada Medellin waxa ay ahaayeen kuwo u oynaya Robin Hoodkii magaaladooda waxaana janaasadiisa ka soo qayb galay 26,000 oo qof halkaasi ayay ku soo gabagabowday noloshii Pablo Emilio Escobar iyadoo aan si fiican loo ogaan hantidiisa inta ay gaarayso waxa ayna majalada Forbes ku dartay dadka uu qanisan caalamka dadka qaarna waxa ay leeyihiin waxa uu aasay $50 bilyan oo lacagtiisa ka mid ah inkastoo uu dhamaadkiisu ahaa mid madow isla markaasna uu ku lug yeeshay dalka kumanaan qof haddana kama suulin jacaylka ay u qabaan dadka reer Colombia haddaba Escobar ma wuxuu ahaa dambiile mise waxa uu ahaa Robin Hood intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkeena maanta muuqaalkan diyaarintiisa waxa gacan weyn ka geystay Maxamed Axmed Yuusuf mahad ka gaarto